adilada tilmaamaysa ilaahay jiritaankiisa iyo weynidiisa oo ay culammadu yidhaahdaan cadada khalqi illaahi bay laagtay waayo maa min makhluuqin ilaa huwa daliilun lilaahi subxaanahu wa tacaala wax ilaahay abuuray ma jiro oo makhluuqaadka ka mida cir iyo dhulba jira ilaa iyo wuxuu caddaynuu yahay rabbi subxaanahu wa tacaala laakiin culammada filosofiga iyo sayniska iyo cilmulkalaamka iyo qolyahaasi markay wada hadlayaan qaab ay u wada hadlaan baa jira oo ay waxu istidlaalaan dunidani siday u dhisan tahay bay leeyihiin dhammaanteed cirkeed iyo dhulkeed iyo waxeedaba marka la ysku daro waa kownun ucidda liistiqbaalina bay idhaahdeen waa duni loogu talagalay inay innaga ina qaabisho dunidanaynu ku nool lahay iyo qaabkay u dhisan tahay wax kasta oo nolosha bini'aadamku u baahan yahay baa taalla weliba qadarkii uga baahnaa buu leeyahy haddii kor looga qaado way fasahaadaysaa noloshu haddii hoos looga dhigo way fasahaadaysaa yaa inagu sii jaangooyey marka argumentkan waxay yidhaahdaan fine tuned bay yidhaahdaan fine tuning waa dabdi daqiiq maalan raadiyowga irbadda markaynu saarayno mid yar baa jirto tashuush ka ilaaliso aad irbadda markaad meel la hesho codku kaleer noqonaya haddaad xagga u yaro qaaddo ama waad ka baxaysaa ama codkaa tashuush noqonaya haddaad xagga kale u qaaddo ama waad ka baxaysaa ama codkaa tashuush noqonaya irbaddan aynu wadnaa waa xadhig yaroo ku xidhan capacitor variable capacitor sheegaya hadba capacitaniskaad rabtaa intuu leegiya laakiin waxay yidhahdaan waa fine tuned meeshaa markaad saarto umbaad codkaa helaysaa waxay leeyihin dunida gebadeeduba meel bay saarantay jiritaankeeda iyo innaga nolosheedu isku xidhan yahay oo haddii wax kasto sida ay maanta yihiin haddii in yar laga dhaqaajiyo noloshu aanay gebagaboobayso amase aanay jiraynin walidalik baa waxay yidhaahdaan freeman dyson ninka la yidhahdaa wuxuu leeyahay mar kastoo aqoonteennu badataba waxa sii badanaysa buu leeyahay nolosheenna iyo universku siday mutataabiq siday isu waafaqsan yihiin waxaana inugu sii badanaya buu leeyahay dareenka ah war waa duni laynoo diyaariyey tani inay tahay baynu rumaysanaynaa buu leeyahay mabda'aasa waxay ku tilmaamaan philosoferisku anthropic principle bay yidhahdaan the strong anthropic principle almabda' albashari alqawi mabda'a kani wuxuu sheegayaa markaa waxay yidhaahdaan waa mid kaleoo ka mida saynisyahanada wuxuu yidhi tailor made for man weeyaan buu yidhi adduunka kani markaad marada tolanayso haddaad u tagto haddaad dee maro suuqa taalla soo iibsatana si unbay saataan aan xidhanaya ama kaa yaro ballaadhnaanaysa ama si unbay kaaga waasac noqonaysaa laakiin haddaad dawaarwalaha u tagto oo qiyaasta ku saarsaaro wuxuu kuu tolayaa maro adiga lagugu jaangooyey wuxuu leeyahay dunidanaynu joognaa waa tailor made for men waa mid loo tolay bini'aadamkaa lagu jaangooyey siday u taallo haddii wax yar laga bedelo nololi ma jirayso idan bay leeyihiin kullu dalik waxay sheegaysaa inuu yahay tartiibun mutacamad bay leeyihin war waa tartiib lagu talagalay oo noloshu waa nolol laynoo sii diyaariyey waa kownun ucidda lanaa bay tilmaamayaan qadaayaadka ay sheegayaan haddaan sii tilmaamo waa waxayn runtii wakhtigu ku fillayn waa waxaan wakhtigu ku fillayn oo dee waxa ay tilmaamayaan everything wax kasta oo dunidan korkiisa yaalla oo siduu yahay wuxuun laga beddelaa atmosfeer ha noqdo cadceed ha noqdo distiniskay wax isu jiraan ha noqdo xataa atamka nuclearka wasnigiisa ha noqdo proteinka wasnigiisa ha noqdo spaceska u dhaxeeya ha noqdo forceska isku haya ha noqdo wax kasta oo nolosha ka mida oo wax laga beddelaa waxay keensanaysaa bay leeyihin inaan nololi jiri karin laakiin markaynu mas'aladan tilmaamayno waxa ay tilmaamayaan oo sheegayaan dunidu sida ay u taallo wax kastoo ka mida oo wax laga beddelaa waxa ay sheegaysaa inaanay noloshu jiri lahaynba mararka qaarkoodna waxay sheegaysaa inay in yar ku baabi'i lahayd aan tusaalayaal kooban oo dadku caadi u fahmi karo wax ka tilmaamo
markay leeyihin kownun ucidda lana waxay dhahdaan dhulka qoloftiisu dhulku marka la dalooliyo hoos loo socdo inta hoose waa maxay waa dhoobo oo kale waa melting waa wax cajiin marka qolof buu leeyahay qoloftiisa meesha ugu yari waa 70 kilomitir waxay dhahdaan qolofta dhulku intay hadda tahay hadday ka weynaan lahayd dunida ugumayna nimaadeen bay dhahdeen wax oxygen iyadaa nuugi lahayd wax carbon dioxide-ana looguma yimaadeen that means noola kuma noolaadeen hadday in yar ka yar tahayna waa cagsiga maalan waxay leeyihiin atmosferka hawadan cufnaan bay leedahay culays bay hawadu leedahay haddii culayskeedu intaa ka fududaado densitygeedu culayskeedu hadduu intaa ka fududiyay hawada way kor bay u bixi lahayd hadday kor u baxdana waxba inagamay celiseen iminka xidigaha dhaca iyo waxaynu aragno nayaazigta iyo shuhubka iyo waxaynu aragno dhan asteroidskaasi xidig baa dhacday Soomaalidu tiraahdaa laakiin inama soo gaadho wuxuba dhulkay ku soo dhici lahayn bay leeyihiin that means noole kama jirteen waxay tilmaamayaan oxygen-ka dunida maanta waa 21% hadduu in yar ka badan yahay bay yidhaahdaan every 1% oxygen-ku uu bataa bay leeyihiin 70% buu kordhinaya inay dunidu gubato macnaheedu waxa weeyaan oxygen-ku hadduu 22 ahaan lahaa hadduu 21 ka yahay hilaac kastoo dunida ka dhaca way guban lahayd hilaacu markuu billig yidhaahdo kayntoo dhan baa ololi lahayd wax jiraa ma jireen magaalooyinkaa ololi lahaa waxay leeyihiin cadceeddu intay inoo jirto distance-ka inoo jirto hadday ka fog tahay waynu engegi lahayn hadday ka dhowdahay waa la guban lahaa dayaxu inta uu jiro hadduu ka dhow yahay badda caarigeeda mawjadaheedu labada goorba wuu ina qarqin lahaa marna xagga kale uga bixi lahayd marna waa ka guuri lahayd hadday ka durugsan tahayna waa kadalik dhulka wareegiisu bay leeyihiin intuu yahay hadduu ka dheerayn lahaa iyo hadduu ka gaabin lahaa labadaba nolole ma jirteen hadduu ka gaabin lahaa macnaheedu waxa weeyaan habeenkaa dheeraan lahaa iyo maalintaa dheeraan lahaa sida planetiska kale marna waynu guban lahayn cadceedda tirada badan leyna haysa marna qabow baynu u dhiman lahayn qabowga tirada badan leyna haya dhulku dayax maadaama uu magnetic fieldkiisu hayo tilted weeyaan 23 degree 27 wuu yara qalloocaa bay leeyihin dhulku qalloocaasi haddaanu jiri lahayna uu toosnaan lahaa bay leeyihin dhulku uu sidaa u taagnaan lahaa imika waa yara sidaa hadduu sidaa u taagnaan lahaa bay leeyihin roobka da'ah north poleka iyo south poleka labada qudbo qura roobku heli lahaa dhulka intiisa kalena saxaaray ahaan lahay maalan waxay tilmaamayaan haddaanu tiltidhkaasi sidaa ahayn ama roobka ama dabaylaha ama biyaha badda haddaad tidhaahdo hadday intan ka yara dhanaanaan lahaayeen nololi kama jirteen hadday intan ka macaanaan lahayd nololi ma jirteen grafitiga dhulku hadduu intan ka yara weynaan lahaa waxay leeyihiin maroodiga xayawaanka leegi xasharaadku leekaan lahaa ma la koreen innaguna dee hadduu maroodi xasharad leekaanaya quraanyadaynu ka sii yaraan lahayn de quraanyo yaroo dhulka kor socda ayaynu ahaan lahayn the four forces mid kastoo wax iska beddelaan nololi ma jirayso buuruhu siday yihiin haddii wax laga waxay leeyihiin war wax kastoo dunidan dul saaran saynisyahanadu waxay leeyihiin wax kasta oo dunidan korkeeda saaran oo maanta aynu hayno haddii wax yar laga beddelo nololi ma jirayso idan bay leeyihiin kullu dalik waxay sheegaysaa inuu yahay tartiibun mutacamad bay leeyihiin war waa tartiib lagu talagalay oo noloshu waa nolol laynoo sii diyaariyey waa kownun ucidda lanaa bay tilmaamayaan ilaahay wuxuu leeyahy wakhalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira baa ilaahay yidhi wax kasta rabbi waa abuuray laakiin wuxuu abuuray isagoo jaangooyey jaangooyn qiyaas loogu talagalay iyadoo ku socota